Bismillahir Rahmanir Rahim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga CWTV oo hadahayo kala socotaan xaruntiisa dhexe ee magaalada Tanacaabud warka waxa uu diyaar anigu macnashaada qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah munaasabad lagu caleemay saariga gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada magaalada Bangeele oo ka dhacday gudaha magaaladaasi gudoomiyaha degmada Dhabad oo fariin u fura maamulka Galmudug madrasooyinka lagu barto Quraanka Kariimka ee ku yaala magaalada Baydhabo oo u diyaar garooba tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan wasiir ka tirsan maamulka Soomaaliland oo maanta gaaray deegaanka Ceel Afweyn qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba asagoo faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal warkiyo faahfaahsan munaasabad lagu caleemay saariga gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada magaalada Bangeele oo lagu qabtay gudaha magaaladaasi sida warbixintan inoogu soo diray wariyahayna Mahad Bashiir munaasabadan oo ahayd mid lagu caleemay saariga gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada ee deegaanka Bangeele Axmed Sheekh Ciidruus iyo Yuusuf Iraad Maxamuud ayaa waxa ay ka dhacday gudaha magaaladaasi Bangeele gudoonka cusub oo ah mid dhalinyarada deegaankaasi Bangeele ay iska soo xuleen ayay xalfada caleema saarkooda waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Cabudwaaq ururka dhalinyarada ee degmada Cabudwaaq iyo waliba qaar kamid ah odayaasha iyo bulshada reer Bangeele munaasabadan oo ahayd mid si qurux badan loo soo habeeyay ayaa waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Bangeele Ximbil Maxamed asagoo ka warbixiyay baahida loo qabo in la helo dhalinyaro waxtar leh oo deegaanka horumarkiisa ka shaqeysa oo maanta lagu caleema saaraya gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada degmada Bangeele Axmed Ciidruus iyo Yuusuf Iraad dabaalay labada nin oo aad u firfircoon oo la rabo inay deegaanka Bangeele ay aad iyo aad wax ugu qabtaan ama horumariyaan ama waxtarkooda ama la arki doono oo dad aad u firfircoon bulshada waxaan rabnaa in lala shaqeeyo deegaanka uu la shaqeeyo ururada bulshooyinka sida degmada Cabudwaaq iyo deegaamada Dhuusamareeb iyo dawladda Galmudugba inay la shaqeeyaan mas'uuliyiin iyo qaar kamid ah bulshadii ka soo qayb gashay oo ayaguna dhankooda ka hadlay ayaa u hambaleeyay gudoonka cusub ee dhalinyarada deegaanka Bangeele sharaf weyn bay noo tahay hadaan nahay dhalinyarada Cabudwaaq ana ku hadlaaya hogaankii ama afkii dhalinyarada degmada Cabudwaaq inaan maanta ka qayb galno kulankan lagu caleema saarayo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka Bangeele waxaan dhigi karnaa dhalinyaradu inay iyadu istoorato oo hogaan yeelato waxay mudnaan siinaysaa in la shaqeeyo qofka bini'aadamka in la doorto waa wax aad u fudud laakiin markii la doorto codka la siiyo in la dhaho horay u soco kaligi asagoo waxay taraysa male waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Bangeele hadii hadafkiinu ahaa in Bangeele loo shaqeeyo hadii hadafkiina iyo qorshihiinu ahaa aad wax u dooranayseen inaad deegaanka iyo dadka shaqo u qabataan gudoomiyaha iyo ku-xigeenku kaligood wax ma qaban karaan waa inaad garba u noqotaan beeska ama horumarka bulsho waxay ka imaataa dhalinyaradan waxa weeye waa furaha koowaad ee nolosha bini'aadanka wax ka bedela maadaama ay yihiin dhiig cusub iyo jiil cusub waxaan soo dhaweynayaa u hambalyeynaya gudoomiyaha iyo gudoomiyaha dhalinyarada Bangeele oo runtii aan dhihi karno waxaan rajaynaynaa in ay in badan ka qayb qaataan haday noqon lahayd horumarkii degmada waxaan ku soo dhaweynaynaa si diiran waana ku faraxsanahay horumarka ay bilaabeen meel aan urur dhalinyaro ka jirin waxba kama qabsoomaan marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa xafladan doorashada lagu dooranayo labada gudoomiye oo Bangeele oo xafladan maanta lagu doortay waa soo dhaweynaynaa odayaal ahaan waan ka soo qayb galay halkaan arintaas waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan kala rabnaa iyaga inaan ku boorino maadaama deegaanka loo doortay inay waxqabad deegaanka muujiyaan sida loo doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka
aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ururka dhallinyaradoo kale ee Caabudaaq nooga yimid waxaan ka rabnaa Caabudaaq kaliya kameena ahin ama gudoomiyaha ururka dhallinyarada Caabudaaq kaliya kama aha horta ha ogaado deegaanka Caabudaaq dhan hoos yimaada inuu mas'uul ka yahay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada deegaanka Bangeele Axmed Sheekh Cidruus iyo madaxa arrimaha bulshada ee degmada Caabudwaaq Muuse Maxamed Axmed Muuse Inji ayagoona si wadajir ah uga hadlay muhiimadda ay leedahay in urur dhalinyaro oo shaqeeyaha ay yeelato deegaankani dhammaan guud ahaan waan salaamayaa dadka madasha ka soo qayb galay caleemasaarkan marka xigta waxaan rabaa inaan wax yar faahfaahin ka bixiyo ururka degmada Bangeele ururkan qaybihiisa kala duwan waa dhisan yahay wuxuu leeyahay gudoomiye ku-xigeen xoghaye afhayeen iyo maaliyad wax qabiya ma jiraan waa dhammaan kuraas waa buuxan waxaan kaloo rabaa inaan inta ku daro dhalinyaro horta maxaa la yiraahdaa dhalinyaro waxaa la yiraahdaa dhalinyaradu waa laf dhabarta awoodda iyo aqoonta bulsho kasta ama deegaan kasta dhalinyarada waxaa laga dhaxarkaa mustaqbalka bari ee deegaankaas ama bulshadaas marka inta haddaan taa uga baxo waxaan ka codsanayaa inuu rabo arrintiina soo gaabiyo waxaan ka codsanayaa dhalinyarada degmada Bangeele codsi hore waa dhiibtay ilaahayna waa aqbalay waxay in la doorto tan kale waxa weeye inay la shaqeeyaan Soomaalidu waxay ku maamaadaa far kaliya fool ma dhaqdo haddaad dirteen oo ilaahay duu ku sameeyaa kaliya noqdo waxa ma qaban karo marka waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan hadafkii iyo ujeedadii la lahaa kulliba horey baa loo cadeeyay kulliba xafladda tan oo ay soo qaabisay degmada Bangeele gaar ahaan ururka dhalinyarada ee hadda abaabulkiisii iyo madaxdiisii la doortay ee degmada Bangeele ee dhamaantood iyo xafladdan abaabulayaasheeda iyo maamulkeedana waan u jeednaa kulli waxay ahayd caleemasaarka iyo maaragtay u bogaadinta iyo hambalyeynta guddiga cusub iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Bangeele taasaana keentay mataqaanaa ka maamulahaan anagoo maamulka degmada oo dhammaan wada soconna iyo macnaha dhalinyaro iyo golo guurti iyo intaanadaas oo dhan oo degmada Caabudwaaq ka nimid inaan xafladan ka soo qayb galno marka mahad guud baan ka jeedinaynaa ka soo qaybgalka xafladatan midda labaad oo kale meesha jirta waxa weeye waan u hambalyeynaa dhalinyarada Bangeele sida wanaagsan oo isku xilqaameen oo isku doorteen oo rabaan inay uga qayb galaan hawlaha kala duwan ee degmada ka jira Ahmad Bashir Asmaan Madax xilif CWTV degmada Caabudwaaq gudoomiyaha degmada Dhabad oo fariin u diray madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Kaari Qorqor ayaa sidan yiri Qorqor waxa kula talinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waad ogtahay Galmudug wax badan dhibaato iyo wax dara inay soo marnay ay dhaqaaq weeyday waxaan maqlaynaa waxyaalo jira dad raba in hawsha aad ku jirto aan kula jecelayn oo raba inay ku hadfiyaan oo iskaga ka dhigahaya gacal ama kula talinaya ama magaciisoobay dadkan maalinba wax qaybsaday nin ku hulgan iyo nin ku dharagsan hal maalin baa wax la qaybsaday weli ma aanaan gaarin 4.5 ma aanaan gaarin iyo cod waxaan ku jiraa 4.5 qof walba wuxuu lahaa nasiibkiisa oo Ilaahay siiyay rag baa raba inay ku dhaafiyaan oo si kale iyo waxyaalo kale ay ku galiyaan waxaan kugula talin lahaa maadaama aad rabto dawladdaadu inay socoto maadaama intaas aad ogtahay oo waayo arag u tahay intay khilaaf iyo dhib soo madhay maadaama aad ogtahay in maanta waxa loo baahan yahay isku xir iyo dawladnimo iyo inay tahay waxaad uga badbaadi kartaa oo naftaada uga badbaadi kartaa oo ku badbaadin kartaa Galmudug nin walba wuxuu lahaa inaad u xisaabisid nin walba wuxuu lahaa inuu qaato ayagu dadka nin walba wuxuu leeyahay ayuu ha kala qaateen haday rabaan laakiin qof walba wuxuu lahaa dadku wax buu qaybsaday qabiilooyin buu wax ku qaybsaday qabiil walba wax buu lahaa waxaan kugula talin lahaa oo kugula talin lahaa anaga waxaan rabnaa Galmudug inay noo socotaan rabnaa khilaafkeedii waa soo maray dhibteedii waa soo maray waa ku qadnay waxba waa ka weynay waxaan wax uga weynana waxa weeye waa khilaaf iyada ku dhex jiray yaan la saaka dhigin gacal kulama uu rabo wax qofka raba qof wixiis inuu qaato oo asagu uu qaato qofkii wixii lahaana laga qaado intaa waxa weeye talada aan ku talinayo anigu nin weyn baanahay
nin adduunka soo joogay baan nahay nin wax arka ayaan nahay waxaan rabnaa dowladda dowlad goboleedka galmudug inay shaqaysaan rabnaa waxayna ku shaqayn kadhaa qof walba wuxuu lahaa inuu helo sababto waxa weeye geelasha waad aragtay sumad baa lagu kala socdaa kan kulliba isku wadeegi laakiin midba waxaa lagu dhigaa sumad nin walba sumadiisa wuu fiirsadaa hadda nin walba wuxuu fiirsanayaa sumaduu lahaa wuu fiirsanayaa ku qanci maayo nin sumaduu lahaa inta laga qaado nin kale la siiyey ku qanci maayo adigana dan kuma ahan galmudugna dan uma ahan laamaha ammaanka magaalada muqdisho oo gacanta ku soo dhigay container ay ka buuxaan maandooriyaha qamriga sidoo warbixintaasi noogu eegay wariyayna Mawlid Galwaaq sida aad halkan ku aragtaan containerkan hadda gadaasheeda yaala iyo dhalooyinka qamriga ah oo idin hor yaala waxay ku soo galeen dekada sida soo socota halka container sida ku qoran warqadda bill of lading waxaa ku qoran 664 kartoon markii la baaray oo la furay sidii caadadu aheeday oo booliiska iyo kastabku markii hore ay fureen waxaa laga dhaxelay 500 oo kartoon oo ah khamriga hadda hortiina yaala 164na waxay aheeday ninka la yiraahdo spare part oo qalabka dayactirka gaadiidka halkaas ka muuqda waa runtii ayaan daro in qof Soomaaliya oo sheeganaya inuu qof islaam yahay ayadoo la gelayo bishii barakeysneed Ramadaan sideeda dhanna Soomaaliya oo khamrigu mamnuuc uga ahaa in sidaas la sameeyo waxaan rabaa inaan la wadaago oo aan bulshada u gudbiyo inay aheeday halisku socota ubadkeena lagu baabi'i lahaa dalkeena lagu fasahaadi lahaa oo dhibaato loogu geysan lahaa maadaama aan ku jirno bishii barakeysneed Ramadaan ay noo bilanayso isla markaana dalka uu ka jiro cudur aafiye adduunka oo asaga laftiisa muxuu ahay sunsi kaalmaynaysa uu yahay khamrigaas baaristi waa socotaa waan haynaa dokumentiga ciddii ku qorneedna muxuu ahay waa lagu daba joogaa iyo ciddii soo dejisay intabana waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xeer ilaalinta ee maxkamadda la horgeyn doonaa waxaana lagu burburin doonaa meel fagaara ah ayagoo sida ay hadda tahay ah waana idinla wadaagi doonaa haddii Allah uu dal ogolaado laakiin hadda maadaama aan qabanay loona baahan yahay la wada sheegay in khamri lagu qabto dekada ayaa maanta aniga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Professor Qaloocow ayaan waxaan marka inaan soo bandhigno oon halkaan keenno muxuu ahay meediyaha si loo arko waxyaabaha lagu qaldaayo laakiin nasiib wanaag way ammaanan yihiin ciidankii booliiska ee kontaroolkaas muxuu ahay ku soo saaray iyo wasaaraddii maaliyadda howlwadeenadooda ka degooda waxaan leeyahay ninka ku soo dhiiraday inuu khamri ka soo dejiyo asigoo og in dhowr jeeroo hore muxuu ahay la burburiyey ee hantidiisi ku soo geliyey inuu ummadda ku baabi'iyo runtii waxaa waaye cadowga waxba ma dhaamo waa cadow sharcigu wuxuu ka qabo ayaguna muxuu ahay mutaysan doonaa haddii Allah awoodda la ogolaado galdacwadeedkina waa furan yahay baaristina waa socotaa natiijadana haddii Allah idmo sida ugu dhow oo ugu fudud ayaan u dhammaystiri doonaa haddii Allah awoodda la ogolaado waana mahadsantihiin imisatan ayay dhan tahay khamrigan maanta la keenay khamrigan maanta la soo qabtay sidaan idiin sheegay waa 500 oo kartoon marka waxaasoo dhan oo faahfaahsan baarista kadib ayaan idiin soo bandhigi doonaa Allah uu dalacdo ogolaado waana mahadsantihiin madrasooyinka lagu barto quraanka kariimka ee ku yaala magaalada Baydhabo oo diyaar garoobay tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan sida warbixintaasi noogu soo diray wariyeena noo jooga magaalada Baydhabo Khalid Cabdi
waa madrasada Imaam Shaadibi oo ka mid ah madrasooyinka ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Tani Baydhabo. waxaa lagu bartaa xifdinta Qur'aanka Kariimka iyadoo ay jiraan arday asaasi ah lagu baro guud ahaan madrasooyinka ku yaala magaalada Baydhabo. hadda ayay ku guda jiraan isdiyaarin ku aadan ka qayb qaadashada musabaqooyinka la qabta xilliga Ramadaan. madrasadan ayaa maanta booqday si aan wax uga ogaado qaabkay isugu diyaarinayaan tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan. maamulaha madrasada Ibrahim Maxamed Yemani ayaa iga waramay madrasadan iyo sida ay u shaqeyso. laakiin may wahe diyaar garowgiisin galeen meelka yaaba in kidis ku koytoodo insha Allah asaas rajaan diyaar garowga meel kidis doonta yaa mareen saacato bas diyaar arday insha Allah taala arday tayasno meel oo doono ka fayla soo rajaan muddo diyaariyaan wali waa taasi oo darasada kalaay alhamdulillah soo hore ma kidarna arday diyaarasi iyo habeen kadib دفعة ستة يا صومكم الرشيد سبحان الله رجعنا إن شاء الله تعالى أنت لو قلت أنا قبل الويلة ويا ريال وين يا ريال وين مركو وقتي ذا العشاء قالوا بمدرسة من هذا يقوم شيء ولا وراكم تمين مساع قبل إلى اليوم تمين مساع ما أنا متجويد شيء ولا شيء مير الحسين ما وياي بل معلمين تطبق فصل سنشل سأشارك إن شاء الله سيايا كرامتي وفصل فصل يعني أفرت معلوم سديد فصل كوي لكن ما نسجل أنا أريد تسيء لم أقول لي أنا ما نشوف كان وكلما لما بكرة تحفيل وبكوي أول أفرت أنا سعيد ميا اسمه مسارو قويا منا قويا ده يجلو ساري ماي marka inta qoyan waa waansho wala saxee bal ila محفظيس ما مثلا يوبا يحفظيس قويا يحفظيس كوي يحفظيس قويا تميل المساعد كتب تحفظ الجديد كتب التصميم العرض اللي الجديد ساسا إجازة شهادة كسير معلمين الديارية تميل البرين ardayda wax ka barata madrasadan oo da'dooda hooseyso ayaa cod qurux badan ku akhriyay aayadaha Qur'aanka Kariimka ee qolkii Eebe. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين أو تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. waxaa guud ahaan madrasooyinka ku yaala gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku jiraan u diyaar garow ku aadan musabaqooyinka oo inta badan la qabto bisha Ramadaan taa oo ardayda ku guuleysato lagu abaalmariyo hadiyado qaali ah. Khalid Cabdi Ibrahim, TV-ga caalamiga ah CW, magaalada Baydhabo. guud ahaan sayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii ood kala socoteen telefishinka caalamiga CW TV ee xaruntiisa dhexe ee magaalada Tancaabudda. warka waxaan la socodsiin anigoo nimcana shaad intaan warkan waxay ku kulmi doon waxaan kaga tagay anagoo isku duuban sidaas iyo nabadgelyo.